masaajidda maanta waa jimce khudbadda ha lagu soo qaato dhibaatadan weyn ee Soomaaliya ka jirta gaar ahaan Puntland ha la ogaado marka koowaad inay Puntland dagaalka ay ku jirta ay ku matalayso ummadda Soomaaliyeed oo dhan argagixisa caalamiya konton qof oo hal meel lagu wada dilay baa waxa laga dhex waayay hal qof oo Soomaaliya yani waa layna ku soo duulay mukhaabaraad caalamiya inala dirnaya dawladaha dacminaya oo dabada ka wada dhaqaale iyo xoolaba la daba socda iyo hub ma ujeeda waxaan u baahanahay inaan iskaashano dalkeenu waa dal muhaddad ku ah cid kasta adduunka oo dhan baa ku soo duulay oo weerar in ku ah marka dagaalkaasi waa dagaal layna ku soo qaaday haddaan Soomaali nahay waa inaan u midownaa meel kasto aan joogno dal iyo dibadba waxa layna ka doonayaa inaan u midowno qodobka koowaad waxaa la rabaa oo lambar 2 ah reer Puntland markii musiibo meel ka dhacdo way gurman jireen iyagana in loo gurmado meel walba ay joogaan in loo gurmado in lagu garab istaago dagaalka arxanlaawayaasha ay wadaan oo cadowga ee ka soo duulay adduunka waxaa la rabaa inaynu u midowno saan u dhannahay ummadda Soomaaliyeed dagaalkaas aynu isaga kaashanahay waa dagaal duulaan dal wadankeena duulaan ku ah oo Soomaalinimada duulaan ku ah sidaa inaynu u aragnaa la rabaa waxaan ugu baaqiyaa hormuudka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan ama siyaasi ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama sheekh iyo caalim ha ahaado ama hormuud si kale ha ahaadee qof kasta oo dad hoggaan u ah oo Soomaaliyeed inay hawsha qayb ka qaataan baan ugu baaqiyaa waxaan rabaa in halkan idinka sheego dawladdu dagaalka ay ku jirto istiraatiijiyadiisa runtii xanuun badan baa jira oo dhaawac badan baa jira oo dhimasho badan baa jirta laakiin guulo isdaba joog ah bay dawladdu ka gaaraysaa argagixisada meelo aad u badanna way ka qabsatay number aad u badanna way ka laysay dagaal markii la galana dhimasho iyo dhiigbaxba waa lagu talagelayaa dhaawac waa lagu talagelayaa dhaqaala lagu talagelayaa burbura waxaa lagu talagelayaa xanuun tiro badan in la wajaho laakiin waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado meesha hadda uu dagaalku ka socdo waxaa la oran karaa tog jacayl lahaa oo dheeraa toggaa in badan oo kamida in laga saaray oo laga qabsaday daaramadow iyo damalle iyo makaraysa qurac iyo meelahaas oo in laga saaray laakiin mushkilada meesha taala waxay tahay nimanku waa niman baadiyaha weligood ku jiray muddana ku tababaranayay shaab shuutaray haystaan waxay haystaan daroono adigoo yani meel fog joogay ku toogan karaan dhashiika intay buur saaraan bay sidii waxay ugu tooganayaan baa la yiri shaab shootarkii waxay ugu tooganayaan madaxda iyo saraakiisha marka waxaa la doonayaa istiraatiijiyadaas in laga wada tashado dad badan oo khibrad u leh dagaalada oo waliba dagaalada buuraha yaqaan in la helo xilliyada ciidamadu soconayaan waa inaysan noqon xilli iftiina habeenkii hala socdo habeenkii ha loogu dhaco meesha loogu gelayo laakiin maalintii ha laga gabado oo ha laga dhunto oo magaranaysaa istiraatiijiyadda ha lagu noqdo ciidamadii waa joogaan raggii aqoonta u lahaa waa joogaan saraakiisha waxaan ku talinayaa xataa haddii la go'doomin karo ciidan meel ku jira lagu go'doomin karo oo loo isticmaali karo daroonadii cirka iyo dawladihii lahaa dalkaanu caawinaynaa oo ka caawinaynaa aerial supportka in loo adeegsado oo ciidamada dhalinyarada aan aada maaragtay marka hore loo gelin kelmadda markaan ka gudbo reer Puntland waxaan leeyahay meelaad joogtaanba waa inaad sabaabushaan dhaqaala loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dawa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay rasaas baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay moral support in dadka loo muujiyo ma garanaysaa in la garab taagan yahay marka waa inay muuqataa baadiyaha dadka degan miyiga waa inay gurmadaan oo xoolahooda bixiyaan baabuur xoolaa waa in laga raraa miyiga oo ciidamada hilib loo qalaa oo si joogto ah ay cunto u helaan oo at least aysan dhinacaas dhibaato aysan kaga imaan xagga sahayda iyo xagga saadka in aada looga taakuleeyo oo laga taageero waxaa iigu xiga xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa xasanow wax badan oo qarannimadii ahaabaad burburisay stagekii caalamiga ahaa ceeb baa noo taal iyo fadeexad wax macnaa kuma lihin qabkii iyo qarannimadii lala ku qadarin jiray dhulkaad la gashay ciidamadii waa burburisay waxaad burburisay hantidii dawladda qaran ee dhexe ay lahayd oo aad kulligeed xaraashtay qabuurihii baad u dhacday
hadda waxaad maraysaa dadkii qaxootiga aaday oo rafaaday oo